بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعان وناكسن إذا لهانتين بدا وضيال كسو دوادا ورلير ميديا waxaan ahay guulada lifle waxaana idin la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya aaga dagaalka ee dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Waqooyi ee ay ku dagaalamayaan dawladda federaalka iyo maamulka TPLF ee maamul goboleedka Tigreega hoggaanka u haya maalmihii la soo dhaafay ama aan idhaahdee labadii maalmood ee ugu dambeysay dawladda federaalku waxay sheeganeysay guulad la xaadle oo ay ka gaadhay furimaha hore ee dagaalka isla markaasina waxay sheegtay dawladda federaalku inay qabsatay magaalooyin dhowr ah oo ay ka sifaysay kooxda TPLF haatanna ay gacanta si buuxda ugu hayso mar ay hadlayeen saraakiisha ciidamada hoggaanka u haya ciidanka dawladda federaalku waxay sheegeen in dhulkii buuraha ahaa ee dhufaysyada adag ay ka qoteen kooxda TPLF ay haatan ka soo tallaabeen isla markaasina ay qarka u saaran yihiin magaalada caasimadda oo gobolka Tigreega ee Maqale sarkaal lagu magacaabo Dachene oo ka hadlayay aaga alamaata ciidanka ka soo socda afayeen ahaa ayaa waxa uu sheegay in ay haatan Maqale feedhaqaawan tahay isla markaasina aysan waxba u jirin inay qabsadaan marfiidnimadii dambe ahayd ciidanka militarigu waxay sheegteen in 70 kiiloomitir ay u jiraan magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigreega haddana mar kale waxaa hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu sheegay in wajigii saddexaad ee dagaalka haatan la guda galay isla markaasina wajiyadiisii hore guulo wax ku ool laga soo hooyay haatan iyo waxa ka dambeeyana loo diyaarsan yahay in la soo qabto kooxda TPLF waa sidoo hadalka u dhigay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed mar kale ayuu waxa uu ku baaqay ciidanka dawladda deegaanka Tigreegu in ay 72 saacadood isku soo dhiibaan nafahoodana ku badbaadsadaan iyadoo ay sidaasi xaalku tahay dawladda federaalkuna ay guulo isdaba jooga sheeganayso ayaa saraakiisha ciidanka dawladda Itoobiya shalay u hadlayay qaar ka mid waxa ay ku goodinayeen in dhinac waliba ay kaga hareereysan yihiin taangiyo magaalada Maqale caasimadda gobolka Tigreega waxay sheegeen in dagaaladii hore aysan waxba ahayn ee haatan ay isu diyaarinayaan kuwii ugu cuslaa oo kooxda TPLF isku difaaci doonto ama ay ku difaaci doonto magaalada Maqale waxayna sheegeen in la isticmaali doono hubka culus oo aan horey loo isticmaalin waxay ugu baaqeen dadweynaha gobolka Tigreegu inay ka fogaadaan meelaha ay kooxda TPLF joogto nafahoodana badbaadsadaan waxaase la yaab leh iyagoo taangiyo ku hareereeyay magaalada rayiddu degan yihiin in haddana ay ugu baaqayaan inay nafahooda badbaadsadaan si kastaba ha ahaatee dawladda federaalka ayaa guulahaasi sheeganaysay iyadoo kooxda TPLF-na ay aamus uga soo gudubtay ilaa iyo shalay toole maanta duhurnimadii markii la jooga ayuu aamuskii TPLF-tu hal mar go'ay isla markaasina waxa ay madaafiic iyo gantaalada blastikada ay ku duqeeyeen magaalada caasimadda oo gobolka Amxaarada ee Bahardar oo waayahanba ay ka dhigteen xarun ay markii ay doonaan duqeeyaan duqeynta maanta ayaa la sheegay in ugu yaraan 3 madfac ay ku dhaceen gudaha magaalada Bahardar hal mar ayay qayladu isqabsatay iyo qiiqu waxaana la sheegay in la arkayay dab xoogan oo ka kacay airportka magaalada Bahardar baabuurta gurmadka degdega ee dabdamiska ayaa halkaasi ku yaacday waxaana la sheegay in khasaare xoogan uu maanta geystay duqeymihii la geystay maadaama xilli la shaqaynayay oo inta badan magaaladu ay socotay oo ku soo hagaageen duqeymaha maanta ay kooxda TPLF ku tilmaameysatay magaalada madaxda gobolka Amxaarada ee Bahardar wali ilaa iyo haatan lama hayo faahfaahin rasmi ah iyo khasaaruhu inta uu leeyahay laakiin waxa la sheegay in burbur la xadle uu soo gaaray magaalada Bahardar ee caasimadda gobolka Amxaarada dhanka kalena ilaa iyo haatan wax wararka ma aysan soo saarin maamulka gobolka Amxaarada iyo sidoo kale dawladda dhexe ee dalka Itoobiya gantaaladan maanta raaxada looga qaaday magaalada Bahardar ee caasimadda gobolka Amxaarada khasaaraha iyo haddii ay dhinacyadani ka hadlaan waxa ay sheegaanba waxaynu idinkula soo wadaagi doonaa wararkeena dambe haddii Rabbi qadaro si kastaba ha ahaatee ee duqeynta maanta Tigreegu ay duqeeyeen gobolkaasi Amxaarada ayaa waxa ay ka dhigan tahay inuu beeno hadal uu warbaahinta shalay la wadaagay taliyaha ciidanka cirka ee dalka Itoobiya kaasi oo Yalma kaasi oo sheegay in ay duqeeyeen god 5 kiiloomitir dhulka hoostiisa qodan oo kooxda TPLF-ta ay duqeymaha ka geysan jireen isla markaasina gantaaladu ugu rakibnaayeen halkaasina ay duqeymaha ka soo fulin jireen
waxa uu sheegay shalay taliyaha ciidanka cirka ee dalka Itoobiya Yalma Madesa in godkaasi ay soo afjareen haddii aysan howlgalkan qaadi lahayn ay dhibaatooyin badan ay dhici lahaayeen. wuxuu sheegay godkaasi in saraakiisha ugu sarsareysa kooxda TPLF qaar badan oo ka mid aysan ogeyn, laakiin uu ahaa qorshe ay xilli dheer diyaarinayeen kooxda TPLF horeyna ugu talagaleen dagaal oo godkaasiba uu ahaa mid u dhow xadka Amxaarada isla markaasina loogu talagalay in laga duqeeyo meelo fara badan. si kastaba ha ahaatee sheegashadii taliyaha ciidamada cirka ee dalka Itoobiya shalay uu sheegay in godkaasi ay soo afjareen oo ay burburiyeen ayaa waxa maanta uu noqonayaa been, maadaama duqeymihii kooxda TPLF ay waday ilaa iyo haatan ay sidii u socdaan. maantana magaalada Bahardar ay mar kale martigelisay madaafiicda Tigreega oo naxariis la'aan loola dhacay airportka iyo bartamaha magaalada Bahardar. guulo badan oo ay dawladdu sheeganaysay shalay dagaaladii dhacay kooxda Tigreeguna ay ka aamusnaayeen maanta sidii hore ma aha. kooxda TPLF warbaahinta ayay soo hor fadhiisatay waxayna sheegteen inay duqeymahaasi iyagu geysteen isla markaasina sii wadi doonaan cadowgoodana burburin doonaan. waxa kale oo ay sheegeen in aysan ka jirin waxba sheegashooyinkii dowladda federaalka ee shalay ee ahaa inay dhul ka qabsatay kooxda TPLF. si kastaba ha ahaatee faanole fari kama qodna weli dagaaladii Itoobiya madaxa ayaa la iskula jiraa lagumana kala bixin. waxaana xusid mudan in dowladda federaalku guulaha ay shalay sheeganaysay aysan la soconin wax cadeymo ah marka laga reebo magaalada Raaya oo ay muuqaal ka soo duubeen. inta kale afka ayay ka sheeganayeen inay la wareegeen, laakiin ma aysan jirin wax muuqaal ah oo dowladda federaalku ay soo bandhigtay oo magaalooyinka Arwa, Adagaraad iyo sidoo kale magaalooyinka ay qabsadeen ah. si kastaba ha ahaatee iyadoo furintii weli sidii u furan tahay Tigreegana dagaalo culus ka socdaan isla markaasina wada hadaladii la sheegay in midowga Afrika oo garwadeenka ka yahay ilaa iyo haatan aysan waxba ka soo naasacadayn. mar kale Addis Ababa ayaa hareeraysanba oo waxaa dhanka iyo Oromada laga soo sheegaya in dibadbaxyo ballaarani ay kooxda Qeyro 3 maalmood ee ugu dambeysay ay wadeen. wararkeeni hore ayaan idinkula wadaagnay. haddaba Qeyro ayaa sheegay in dibadbaxyadan iyo hay'adda bilaabeen uu yahay kii lixaad oo xiriira isla markaasina aysan haatan wax waqti ah u cayimaynin oo socon doona inta ay karkaarka weydaarin doonaan ama ay kaga takhalusi doonaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Oromada haatan kacday waxaa garab socda jabhadda OLF oo duurka ka soo baxday iyadoo hub culus wadata. magaalooyinka qaar ayaana lagu arkayay iyadoo bartamaha magaalooyinkaasi hub culus ku wata oo dhex maraya. waxaa la sheegay in ciidankii dowladda federaalka intiisa badan lagu daabulay gobolka Tigreega ee dagaaladu ka socdaan. Oromaduna waxay u muuqataa kuwo ka faa'iideysanaya cidladaasi iyo ciidamadaasi laga dulqaaday haatan abaabulkoodii iyo qorshayaashoodii ay wataan. si kastaba ha ahaatee waxaynu jecelahay inaynu ku soo gabagabayno xaaladda dalka Itoobiya ee cakiran. gobolka Kazo ayaa la sheegay inay ka soo qaxeen 94,000 oo Amxaara ah kadib markii la bartilmaameedsaday. qowmiyadda Amxaarada ayaa loo bartilmaameedsanayaa baa la yidhi markii ay muujiyeen ama soo bandhigeen boorar ay ku qoran tahay Itoobiya hal meel looga arrimiyo, Itoobiya hal diin oo ortodokska ah leh iyo Itoobiya oo hal calan oo kii 3 midab ah leh ee dhergiga. haddaba waxaa la sheegay in meelo badan qowmiyadda Amxaarada lagu bartilmaameedsanayo sidaasina ay ku kasbadeen inay cadaawad badan abuurtaan. si kastaba ha ahaatee xaaladda Itoobiya weli laguma kala bixin. waxaanan idiin soo tabin doonaa kolba xaaladaha ugu dambeeya iyo wararka ugu dambeeya ee naga soo gaadha, annagoo inta badanna isku daynay inaanu xaqiijino ilaha aanu warka ka soo xiganayno oo u badan kuwa Itoobiya gudaheeda ah. si kastaba ha ahaatee wixii warara halkan ayaad ugu soo hagaagi doontaan. ha naga fogaanina. waa bahda Wardheer Media oo idinkaga sii tagaya fi amaanillah.